السلام عليكم Soomaaliya social media maxkamaday noqotay maqt ninkan kaafi Cabdil dhahay haystaa ana kala garbixiya lacaga u dhiibtay ilma yaraan haya saddex wiil gabar horteena gumeed hadaan maqasheen waa ninkan nin maskiin ilma haysato oo madiya oo wiil iyo gabar la dhashta laheen oo aabaheed dhintay horta ciilaayo oo wiilkeyga maanta 7 jir 6 jir waa hadduu weynaan lahaa abiis maanta uu iga celin lahaa laakiin wuu yar yahay waa ka xumaha in gumeeda daan maqasheen ninkan waa lacag uu iga qabaa dahab uu iga soo furtay Soomaaliya uu igeeyay Turkigan ku wadaah uu yiri intuu u soo laabta baloogu isaaray baka baasaboorkeyga waa soo qaatay in gumeednimada inta la aqbal fiiri gabadhan waa in adeerta ilmay ku haysaa war saddexdeedii wiil adduunka magac baa soo haray maxad adduunka iigu ciilay حتى جودري أنكو جيف أسكر على إلا دبص على ما تكدي بتعرور هذا تلافنك أنا أنكو هلا ظروفه أو كذا وتلافنك إكتل السعرنا دون ذكر كذا عيلة يقبض تطبقون أوكي مني ينسي المها جمر كي بهذين إيجا جودين عن وكذا بلاغة استارت سوماليا يا الله يا أمتي حجر ديركو إمادة دوبلي ما لنتها إمادة طل كاجن راضية محمد سويريا ري عبد الله نكاس با المها على إيجا قبطة haddana intaan imaade inta maalinta imaade guriga aan deganahay tolka waa raadis guriga aan deganahay shala markaad baawurka habargidir ka jibinaysa tolka waa dhiibeen laakiin anigu ii iimaan waayeen lacaga iga qabtaa dahaba iga qabtaa qof eela ka hadlaysa malaha wiilkeyga 6 jir baa ugu weyn Cabdiraxmaan ina gumeed baa tahay dahabka lacagta akoonkaaga iigu jirta malaha مهر إماسين ذهب إماسين جودرجي إيكو جيفن المها قووبا قلوانا لا إيكو سي هستادين ميق لعقتي ذا لعقان هبين برع عنتو كريواي سامليل قفك بنغاني عنتو إيقعونا لعقا علان أصو سارو إلمي إيقا سو دعواي فقلت مني أفرتا كماري وداراني كتابا قعنت قلني إن هذا اللعق أكون كاغا أنا قشانين تطبقون $1 كتابا أكون كاغا مقلي تضبطكم وياه بدونتا لبكون أذا جوني وقعت لكن هذا وحنكون شيء شرف ريمتي السوشيال ميديا هدي سو قرتي حوله يجسي في المهاج والله وبالله أطلع هل دكسيان شهن أو كريا إلهي أوجيا عنتنا أوجو كريا شهن أو كريا كجديا ظروف أنت على قف بني آدنا مصامرت هدي صامرتنا ويرتا هوي المهيستا مضيعها أبا مقبو إيه المقبو قفك مركو وحده يسنتلكيس حتى مرة dhulbaantaa u jeedid markaan wax haysta u tirsanaha ina adeero qooda ay xirada ay lacagteedii dhulbaanto shalay lacagteedii marqaatiba eedeen in eedaday dhashay iyo nina ilma adeernaha lacagta shalay waa idin keenay ninkan anakoo isqabna ah idin imaada waxaan ku dhahay ninkan lacag buu iga qabaa iga qaada ukunkiisa gashta waad la hadasheen waxaad dhahdeen ma jirtaa haabuu yiri tulkiisa 2 nin buu keensaday waa 2019 lacagteeda ilaa ay hadda imuusin maxaan ku shaqaystaa ilma yar baa haystaa dahab ma haysto oo iga qaatay mihir imuu siinin ma garanaysaa kala taga calafka dhamaaday qof diidaysa malaha ma fahmaysaa ilmaha yarkan ku korsan lahay maalintan taleefanka ka waca sida naag sharmooda ama dhelu siidii ii taabta maalintuu rabane biil buu soo diraa maalintuu rabane uma soo diray markaas dabkooda dama ilaahay baa igu ogban boqol shilna bangaani looga aruuriyo oo ilmaha caana ah uu gaday soonki ma garanaysaa gabdho culiyahano daris ahaan iyo gabdho kale ogaadeena ma garanaysaa inuu gumeed hadaa maqasho waa ninkan xoolaheedii warheeda anaga ayaab aragne dumarkan raggii hor cararay ee lacagta saas u firdhinaya maxay ahayd waxaan nugula cayn jiray dumarka waxa way ragga bay lacagti ka dhameeyeen waxaan maqli jirnay wiilba gabar maaragtay oo intaasoo maarta sano isla socdeen oo intaasoo $1,000 uga baxday been nin kale ka raacday hadda sheekada dhinaca kale isku rogto waxay maraysaa gabadhii baa ninkii waxay ku leedahay lacag oo iga cunay ilmahana uu iga tagay way furay taleefankii uu iga xiranaya warheeda 2023 lagu jiraa gabdho waa sidee ya ninkaaga tan kale waxa siinaysid haba u siininbo inuu kuu soo celiyo taas ani iga qora ninkaaga kaliyana ma ahan wax family member dhanba lacag aad siinaysid haba isdhihinba lacagtaas way kuu soo noqonee trust me walaalka walaasha
dee waalidkaaga xaqayba kugu leeyihiinoo dee snow way qof waalidkeeda lacag ku deemin kartee dadka kaleeto macnaha ilma adeeradaada maaragtay dhinaca hooyadaa ka imaadaan dhinaca aabbaha ka imaadaan anyway qof faamilkaaga ahbo dee ninkaagana faamilkaaga ku jiraa there's no way intaa lacag u siisid aa uga sugaysid deen taas ani maanta inta iga qor faamilkaaga ma rabtin inaad isku xumaanina dhaqaalaha iskugu imaanina maxaa labada walaal waxaa isku diraa la yiri waa lacag ama dumar anis inkasta oon u malaynayn dad Soomaali macnaha oo isla dhashtay in ay isku dagaali karaan macnaha wax adduunyo ku saabsan especially dumarka anyway come back to reaction guys gabadha maalin hore waxay lahayd saas oo kaleeto nin baa lacag aan sii jiro rootiyaan cunaan waayey dabadeed waxaa dhahday ninkii asaga ahay markaa ingiriiska aan keenay gabadha taloma ingiriiska joogta I think ingiriiska joogta markii aan ma astaghfirullah Norway joogta gabadha Norway joogta ingiriiska ma ahayn waxay tiri marka Norway markii aan keenay ninkii sharcigi ma qaadan laakiin adii deganaansho qaatay cunuga isku dhaleen cunuga markay u dhasho xaal dhaawriya ma ogid miyaan agta sharci ma uga baahnida cunugaaga ku qaadan kartaa saaxiibka cagaho wax ka day yaa cagaho wax ka day qofki fahmi kartaa waxa waaye yaa cagaha oo wax ka day ninkii ma fahanteen sheeko waxa ku dhahay macnaha wallahi kuma diganayo kuma qoslaayo macnaha waxaan la yaabay gabdhaha markuu sheeko ee maqlaan kuma waana qaataan miya yaa meeqay maqli jireen nin baa baxay Afrika aaday 20,000 intii loo dhiibo liir guri ku soo dhis yaa xabada guri intuu ku dhisi lahaa yaa isbaaro loo dhigtay shab laga siistay yaa maalada koor TikTok waxa ku arki jiray islaan saas oo kaleeto wallahi islaantaas uga xumaaday miskiinta waxay tiri odageedii baa saas oo kale ku sameeyay waan islaan weyn marka waxay tiri 20 sano lacagtii aan usoo shaqeynayay maanta waxay rabeen gurigaas inaad iskula nasano iskula qaxweysano maxay tiri walaalo isbaarada naagta isbaarada noo dhigatay maxaa waaye oo 20 jirka wala sheegay ilmeena 20 jir ah soo faarax lagu baasto waxa waaye waa cadow loo baahan yahay gabdho ani horaa idinkugu sheegay waxaan idin dhahay goronyada markay biyaha cabayso halugay gashataa halugna badaankay dhigtaa halug ha idinkugu jirto lugna badaanka idin taalo macnaheedu waa fahmaysid moo qofkaan fahmayn waxa waaye dee si wax loogu sheego kale ma garanayo anyway gabdho waxa waaye wiilkan ani sembiri gabar markay wiilka soo macnaha ka soo sheegato waay aan gabdhaha u canaantaa oon wiilasha aan waxba uga sheegin oo wiilkan hadda aan u dhayn wiil xun qof xunaa tahay saan maxaa ilmaaga u yeeshay waay because asaga xaggiisa weli ma dhegeysanin waxayna u baahan tahay dacwada in sembiri labada dhinac la dhegeysto hal dhinac kaliya looma duuli karo qofka markii ay ayada dhib kuu soo sheegato hadalkeeda siduu kuula egyahay baa reaction looga bixiyaa sida saxda taas waay maahan inaa maaragtay qof bini'aadana la xagxagto oodan ogeyn wixii sida u jiraan marka walaalahayga waa kaasaa hadda waxaa waaye nin waa cadawe horaan idinkugu sheega ninaa aabbaha iyo wiila adiga dhashay ahayn ha isku halaynin waa fahanteen soo maha walaalahaaga of course garabkaaga waaye dhiigaagay leeyihiin marka insha Allah tacaala walaalahayga qaaliga muuqaalka halkaas ayaan kusoo afjiri doonaa marka waa inoo muuqaal dambe oo xiiso leh hal iyo labana waxaan idin dhihi lahaa idinkoona ku fogaanin gabadhaan commentiga ugu reeba muuqaalka oo midig ama bidix soo kori doonane waxaa waaye YouTube-ka waxaa u maleeyaa inaad ka heli doonto soo daawo noolan laa gareey commentina noo dhaaf waxaan sharaf la kaaga codsanayaa haddii aad subscribe noo ahayn inaad subscribe noo saarto